السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhawaada janalkiina qaalin media. maanta oo aan ka hadlayno geeridii ku timid sheekhi Ismaaciil Haniya oo sidoo kale ahaa hogaamiyihii xarakadii Xamaas ee ka dagaalamaysay dhulkii barkeysnaa ee Falastiin iyo xoreyntii Masjid al-Aqsa, taasoo mar walba la dagaalamaysay sahyuuniyadda ama yahuudda wax loo yaqaana, ayaa saakii aroornimadii Arbacada ahayd ayaa waxay sheegeen xarakada Xamaas inuu ku geeriyooday dalka Iiraan, halkaas uu kaga qayb galayay caleemasaari madaxweyne cusub ee Iiraan ee dooratay, kaas oo magaciisa la yiraahdo Mascuud Pezeshkian. halkaas oo Iiraan iyadana hadashay gaar ahaan xarakada ama muxuu ahaa ururka kacaanka ee Iiraan ee loo yaqaano Harath al-Thawri ayaa iyagana waxay sheegeen inuu halkaas duqeymo ka dhacay ee geysatay sahyuuniyadda oo ku geeriyooday Ismaaciil Haniya, weliba asagoo goobtiisa degnaanshaha Iiraan oo ka degnaa. madaxweynaha sidoo kale wuxuu sheegay in uu ilaalinayo madaxbanaanida dalkiisa iyo xornimada ee leedahay iyo sharaftiisa, uuna gacan bir ah kusoo qaban doono ama falalkan ciddii geysatay laga daba tegi doono, inkastoo u badan tahay in duqeyntan ay ka dambeyso sidoo uu leeyahay madaxweynaha uu hadalku dhigaya sahyuuniyadda ama yahuudda ama Israa'iil. laakiin baaritaan ayaa la wadaa, wixii soo baxo ama kasoo kordho markaas ayaa la ogaan doonaa. daawadayaal, intii kulan dambe waxaan idinka tegayaa sida iyo nabadgelyo. subscribe-ta iyo like-ta iyo share-tana waa xaggiina. mahadsanidin. كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروا